السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يكسود هذا channel كيما سيال كميديا. داود المحق وقتها كرنت عرضت الصومالية قربها كنول وربحين ديرها دا يا مقل دونتان ما قاعد ومصلح نسيب فلنا دان وعصوبتها channel كان سبسكرايب بنوصر qoyska kaliya ee Soomaalida ah ee xanaanaya carruurta ee Bristol ayaa dadka kale ee Soomaalida ugu baaqay inay iyagana kula soo biiraan barnaamijka korinta carruurta. qoysaskan ayaa ku nool magaalada Bristol ee dalka Britain. qoyska Buralia ayaa sheegay in loo baahan yahay in la helo qoysas badan oo Soomaali ah oo carruurta xanaaneeya sababtoo ah waa muhiim in la sii waafajiyo dhaqanka carruurta iyo diintooda. inta badan waxaa dhacda carruur Soomaali ah oo ay xanaanayaan qoysas cadaan ah oo aan muslimiin ahayn taasi oo dhibaato dhaqanka ay diinta ay kala kulmaan. magaalada Bristol waxaa ku nool Soomaali kor u dhaafaysa 2,000 oo qof waana qowmiyadda ugu badan ee ku nool meel ka baxsan London iyo Birmingham. golaha deegaanka Bristol ayaa sheegay inay doonayaan in tirada dadka kordhiyaan si loo helo dhaqamo kala duwan iyadoo la doonayo in cunuga muslimka ah la ogaado marka la geeyo xarumaha lagu xanaaneeyo ay haddana suuragal ah in la ogaado tirada saxda ah ee carruurta Soomaalida sababtoo ah dhaqan iyo halka uu ka soo jeedo cunuga lama diiwaangeliyo. qoyska Buralia ayaa 9 sanadood ee la soo dhaafay barbaariyay carruur ka badan 10 iyagoo sidoo kalena barbaariyay 4 cunug oo ay dhaleen. carruurta ay koriyaan ayaa waxay iskugu jiraan Soomaali, Pakistan iyo kuwo kale oo reer British. shabkadda xanaaneynta carruurta oo la aasaasay 2017 ayaa horseeday inay sare u kacaan qoysaska muslimiinta ee carruurta xanaaneeya waxaana haatan qiyaas ahaan carruurta muslimiinta ah ee ku jira xarumaha xanaaneynta ee guud ahaan gobolka lagu qiyaasaa 5,000 ilaa 7,000. golaha deegaanka ayaa sheegay inay sii wada doonaan la shaqaynta bulshada Soomaalida ee ku nool Bristol si loo horumariyo xiriirka. Saciid iyo Seynab ayaa sheegay inay ka warqabaan inay jiraan fikrado qaldan oo ay bulshada Soomaalida ka aaminsan yihiin inay noqdeen waalid xanaaneeya carruur aysan iyaga dhalin.